سعيدا كن ثريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. والله ليال ما أنت وحكوا بشي ذي الحجة كم إذا هيد بلها حرمة له بشاس أو ما أنت مالنت السدادات لو دراري دونو حجكي أركان الإسلام كم إذا waxaynu baraarujin lahayn markaa waxyaabaha inala gudban ayaamahan qaaliga ah ee aynu ku dhex jirno oo hadiya jeer in waqtiga uu qofku ku jiro ee fadliga badan la isku baraarujiyo waxa ka faa'iida qofku inuu ka faa'iideysto ayaamahan iyaga fadligooda iyo camalka la sameeyay fadligiisa iyo waxyaabaha lagu camirayo saddexdaa arrimood ayaynu midba wax ka odhan insha allah. tobankan maalmood ee ka bilaabmaya maanta fadliga ay leeyihiin ee ku soo arooray nusuustiya daliilada waxaa kow ka ah inuu ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala waalfajr walayaalin cashr. ilaahay baa wuxuu ku dhaartay waaga baryaya iyo habeeno tobana. marka culimada tafsiirku siday u badan yihiin waxa weeye kamaa yaquulu ibnu kathiir waa tobanka u horeeya bisha carafa aynu u naqaanay dilxijo la ydhaah oo haddii habeenadii la sheegay habeenkiiyo maalintu ma kala hadhaana way wada socdaan. culimada qayb ka midina habeen mar haddii la sheegay habeenada tobanka u dambeeya ramadaan bay ku fasiraan. waxa labaadoo fadligooda ka mid a ayaamahan qur-aanku si gaar u calaamadiyo wuxuu ilaahay u bixiyey al-ayaamu almacluumaat maalmaha la yaqaano khayrka iyo wanaagga iyo dadaalka lagu yaqaano. sidaana waxaa sheegaysa aayadda 28 ee ka mida suuratu lxaj wayadkuru isma allahi fi ayaamin macluumaat calaa maa rasaqahum min bahiimati lancaam. dadka cibaadaysanaya ayaamahaas xajka camalka soo gudanaya maalmo la yaqaano ayay ilaahay xusayaan oo magaca ilaahay ay ku gowracayaan xoolahay ilaahay ugu dhowaan lahaayeen. waxaa saddexaad oo fadligooda ka mida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa uga markhaati kacayna yihiin maalmahani maalmaha ugu fadli badanba ayaamaha adduunyada la marayo. حديث صحيحة وجابر بن عبد الله ورينيو وحو رسولك كل صلى الله عليه وسلم فضل أيام الدنيا أيام العشر. أيامها أمام مالمها الدنيا ذا وحو فضل بدن طبعا كما الموت أهر ريا بشاد الحجة الله ينعظم يعني 10 ذي الحجة أي كفص راوغو قيل ولا مثلهن في سبيل الله. مركا رسولك وحل ويديي oo qofka jihaadka ku jira ee de hawsha adag qabanayana camalkiisu miyaanu ka fadli badnayn ka maalmaha la qabanayo. nabigu waxa uu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam walaa mithluhunna fi sabiili llahi ilaa rajulun cafara wajahu bituraab. camalka maalmaha la qabanayaabaa ka fadli badan xataa jihaadka qof ku tegoon kasoo kala hadhinba mooyaane ama ku shahiiday kaasaa ka fadli badan karaa. waxaa afraadoo ayaamaha fadligooda ka mid ah yowmu carafa ku jira. yowmu carafa maalinkii carafa ee ducada addoon uu ducaysto ugu fadli badnaa ee la ducaysanaya maalinka ah. yowmu alxaji alakbar maalinka xajka weyn
ayaa culimada qaarkood ay ku fasireen waa maalinkii dunuubta la dhaafay naarahana ilaahay addoomaha uu ka xoreynayay malaa'igtana ugu faanayay mu'miniinta halkaa isugu soo baxay maalinkaasaa keligiiba ugu filanba fadli arrinta shanaad ee maalmaha fadligooda sheegaysaa waxa weeye anna fiiha yowma naxr maalinka ciidda isna ku jira ورسولك صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن مالمها إلهي يكتس وحا وفضل بضان أما أوين مالنك حولها لقورع عيدة وحا كحيقا مالنك كوبية طبنات مقعيه إلي مالمها عملك حجك لقودنا يا مالنك السديدات ويوم التروية الله إله مالك بيها لون أنستني حجك هي يوم عرفة سقالك هي يوم النحر أو يوم الحج الأكبر مالك حجك وين عملك حجك فرا بدن لقودنا يا عيدة يوم القر هي مالك إلا النجاني وكوبية طبنا ساو النبي قوم مقع بحية عليه الصلاة والسلام يوم النفر الأول هي مالك هرلو قديمي كرا يا حجك يوم النفر الثاني هي مالك إلا بعد سوقنا حجك اللي قد ريري وصدحية طبعاً مالكاً فضل جيسا وحكم إذا اجتماع أمهات العبادة فيها عبادوينك أياكل ميوى ويناء ابن حجر رحمه الله مركو شرح يوحى في كتابه فتح الباري بخاري أو كشرح يوحى الله والذي يظهر أن سبب في امتياز عشر ذي الحجة وحقوا sabab ah in fadligan ay yeeshaan uu yeesho maalmahan ay yeeshaan fadli inta la eg waxa kulmay cibaadooyin waaweyn as-salaa was-siyaam was-sadaqa wal-hajj salaadii baa ku jirta saynu ogsoonaan meel laba ka maqnayn soom baa ku jiro maalmahan saynu sheegi doono waxyaabaha fiican waxa kamid ah soomkooda sadaqadii udxiyadii baa la qalayaa hadigii baa la qalayaa waxyaabaha sunno iyo waajib noqonaya xajkiina uu ku jiraa marka arkaan islaamkii waaweynaa intoodii badaba ku jira buu leeyahay wala yataata dhalika fi ghayri ayaamaha kale ma kulmaan intaas waxa labaadoo nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam sida horeba aynu soo sheegnay amalka ayaamaha la qabanaya inuu yahay amalka u fadli badan ma min ayaamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam amal la qabto oo ka fadli badan amalka maalmaha la qabtaa ma jira buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa intaasi raaca maxaa sunno ah ee lagu dadaalaya hadaynu garanay maalmahan iyo amalkoodu baynu fadli badan la qabanaya maxaa u sii haboonaynu ku dadaali doonaa ayaamaha dhexdooda waxaynu ku dadaalaynaa koow cid ilaahay u sakhiray adaa manaasik al-hajj wal umrah in xajki iyo umradii cidii tagtay si wanaagsan ay u gutaan iyagoo og ayaamahana fadligooda aan fursad iska luminayn نبينا عليه الصلاة والسلام فضل حجك عمرة دائم بدن بكورها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لو هذا عمرين تكرر حيسيل هيدا بكل عفاب النبي حجك أضامك وقصة فلينا أبا المرين كلام لها أن شرنا هين وحسنا يا مهن إنه قفك الصومة والصوم وكقاته إلى حديث القدس لها وحو إنه أبو بشارة قفك الصومة يا هيرك يفضل قولي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قفك عملك أو صمين يودان استقع اسكالة صومك مو يعني صومك أنا كأبا المرين يبا إلهي سبحانه وتعالى مركا صومك سيدي سنين أو النقنية فرض كين أو النقنية نبينا عليه الصلاة والسلام سيقارا وحو قصي هضلي مالك عرفه الله صومه qofkii deegaankiisii joogay ee xaajiga hawsha ku jira ahayn marka wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muslim ku sugnaa siyaamu yawmi arafata ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata ba'da ilaahay waxaan kaga sugayaa oo ajri kaga doonaya soomka maalinta arafa inuu iga dhaafo dambi sanadkii hore dambigii dhacay iyo ka soo socdaba kasoo socda inta badan cibaadooyinka kuma badna in la sheego halkan baynu ku arkayna macnaheedu inaad maalinkaa soonto ilaahay wuxuu kaaga dhaafay dambigii sanad hore ka dhacay iyo sanadka soo socda
sidaasuu ku caddeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaadii baa iyadana addoonku uu ku dadaalayaa siiba jamaca iyo masjidka inuu ku tukado ayaamaha wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah faral iska daayo faralka qofkii uu ilaaliyo u xafidaya sunnahana wuu ku dadaalayaa markastuu sunnaha badiyo addoonku ilaahay buu usii dhowaanayaa sida xadiidulqudsiga ku sugan waxaynu badinaynaa ayaamaha altakbiiru waltaxmiidu waltahliilu waaldikr dikrigaa kala duwan subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar oo qof walba u sahlanaya iyo inaynu xuska ilaahay badino oo muu kala qaadin nebigu calayhi salaatu wasalaam camalada maalmaha la qabanayo dikriguna kow buu ka yahay siday ficil ahaan ku fasireen asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi bnu cumar sida bukhaari ku sugan iyo abi hurayraba waxa an yakhrujaani ila suuqi fi ayaami alcashr yukabiraani wa yukabiru nnaasu bitakbiirihima suuqay u bixi jireen abi hureyre iyo cabdillaahi bnu cumar marka allahu akbar bay wadayaan ciidda ka hor iyo kadibba dadkuna markaasay la akhriyayaan kolkaasaa suuqa halkan innaga buuqa uu ka badan yahay ee guuxa uu ka leeyahay buuqa iga iibiyo iyo wixii nooca ah takbiirtaasaa kor u kici jirtay suuqa oo asxaabta iyo dadka muslimiinta halkaa joogaa ay ilaahay weynayn jireen subxaanahu wa tacaala iyagoo howlahooda wata haddana sidoo kale cabdillaahi bnu cumar oo dhaqanka nebiga aada u eegan jiray iyo sunnihiisa marka uu mino joogo aada buu akhriyi jiray ilaa mino oo dhan ay isu baxda iyaduna takbiirtu oo guuxa takbiirta la maqli jiray waxaanay u badnaan jirtay cid waliba gaarkeeda inay isaga takbiiran jirtay waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid ah sadaqa wax bixinta ayaamaha farxadda la bixiyo wax ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaأtiya yowmu laa baycun fiihi walaa khullat walaa shafaaca wاlkaafiruuna hum الظaalimuun wax bixiya buu ilahay yidhi intaanu qiyaamuhu iman maalinka qiyaamuhu markuu yimaadana qofku fursad uma haysto baac mushtari iyo saaxiib wax siiya iyo waxuu bixiyo toona camalkii wuu xidhmay waa abaalmarin marka ayaamaha ah wax bixin kartaan wax bixiya buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa la bixinayana waxaa usii fadli badan xoolaha lagu qalayo beytullaahi alxaraamka iyo xaramka lagu qalayo haddii uu yahay hadigii waajibka ahaa iyo haddii uu yahay kii sunnaha ahaa labadaba oo waxaynu ogsoonnahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 100 geela ayuu qalay sanadkii uu soo xajiyey ee xajatulwadaac 100 geela wax aada u badan weeye oo innaga daynala badan intii badnayd isagaa gacantiisa shariifkaa ku gowracay cali bnu abi aalib uu dhowr iyo 30kii soo hadhayna u dhiibay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa qofka awood u leh xataa isagoo halkan joogo u diran karaya si xaramka loogu qalo waxaa kaloo sunna udxiyada oo qofku markuu halkaa joogo wuxuu qalayaa waa hadi reerkiisa marka uu joogo maalinka ciidiya 3 maalmoode ka dambeeya xooluhu qalayana tusama udxiya udxiya la yidhaahdaa isku shuruudaanay leeyihin oo neefka udxiyada galunba hadigana galaya nebigu calayhi salaatu wasalaam udxiyadaana wuu samayn jiray oo neefkaa waa gowracaya iyo ka badanba sidaa markaa ku sugan bukhaari iyo muslim nebigu calayhi salaatu wasalaam daxaa bikabshayni amlaxayni aqranayni wuxuu gowracay 2 neef ama 2 wan oo shilshilis oo geesa leh saa la garanayo dee arigu ama wananku goortay geesa yeeshaa waa markuu dhowr jir yahay ama muddo joogay markaa dabaxahumaa biyadi wasamaa wakabar gacantiisuu ku gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu lugta ka saaray garabka oo gacantiisa uu ku qabtay oo midigtana ku gowracay kolkaasuu bismi illaahi allahu akbar ku gowracay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid kalena waxa uu ku yihi qofka bani aadamkii maalintaa ciidda ma sameeya camal ka fadli badan min ihraaqi dam dhiigu daadiyo neef xoolaha uu gowraco ama xoola uu gowraco dhiigga ka daadiyo dhiiggaa uu daadinayaa u fadli badan maalinkaa ciidda iyo 3 maalmood ee ka dambeeya dhiiggu intaanu dhulka ku dhicinba ilaahay agtiisa meel buu ku dhacaya alla u qorsheeyo subxaana wa tacaala ajrigeedu wan yahay xajkana markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi afdalu lxaj alcaju wathaj xajka waxaa u fadli badan ka uu qofku talbiyadii iyo dikriga aada u akhriyo kor u qaado dhiig badanna uu qubo oo xoolo badanna uu gowraco
إسلام كنا هذه الشيء كده على أيامها إن بلشنا باهني أي درجان والله وضع فرحة والله إسلام كان قاضى فرحة عيد أيامها كحيرا عيدنا أهل الإسلام تذكر مسلمين اللي بلا عيد بيليه هنا وحيابها كفر حيان صدقة واجب كي تصنها أبا كمذا سيدا دراديد بالتشديي أضحية iyo zakaat fidriga labada ciidood ciidul fidriga waxa ka dambeeya zakaatul fidr oo lagu faraxsan yahay faradkii la soo gutay masaakiintana lala farxayo ciidan xajki markii aynu gudanayna waxa la qalaya udxiyadii oo iyaduna hilibkii iyo wixii dadka ka farxinaya la gowracayo marka qofkii Ilaahay u sahlay awood dhaqaale u haya waa sunno aad u adag waajib maaha zakaat fidrigu waa waajib laakiin udxiyadu waa sunno muakkada marka waxyaabaha lixda ah ayaa qofkii uu ku dadaali doona ayaamaha iyo guud ahaanba camalkii khayrka xiriirkii naftiisa inuu wanaajiyo xiriirkii Ilaahay uu la lahaa wanaajiyo xiriirku ummadiisa la lahaa uu wanaajiyo hadday yihiin ehel iyo hadday yihiin jaar iyo hadday yihiin cid wada joogaanba marka waxyaabaha ayaamahan aynu uga faa'iideysanayna kuwaasa kamida si aynu uga macaashno maalmahan aynu u mahadino marka Ilaahay agtiisa camalka la inoo miisaamayo Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة